Kulan looga hadlayay horumarinta ganacsiga ayaa waxaa lagu qabtay xarunta baarlamaanka South Africa ee magaalada Cape Town. Kulankaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay madaxa Qaramada Midoobay u fadhiya gobolkani Western Cape, Dr. Lawrence, afhayeenka baarlamaanka Sheikh Shaheed Esso iyo mas'uul ka socday jaaliyadaha Soomaaliyeed Mahad Cumar Cabdi. Waxaa halkaasi khudbad dheer ka jeediyay Dr. Lawrence oo isagu sheegay in Soomaalida lagaga daysado xagga ganacsiga. Xiriiryaha jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo dowladda Koonfur Afrika Mahad Cumar Cabdi oo ahaa qabanqaabiyaha kulankani ayaa halkaasi ka sheegay sida ay u dhaleeceynayaan hadalka ka soo yeeray qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Koonfur Afrika ee toddobaadkii tagay bogga hore ku sawiray qaraxyo la sheegay inay abaabulayaan Soomaali ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika. Mahad waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda Koonfur Afrika in ay arrintaasi u muuqato been abuur si ay dowladda cadeymo dhab ah u hesho. Waa in dabagal lagu sameeyo ciddii markii hore bahisay si loo ogaado xaqiiqda jirta. Afhayeenka baarlamaanka dowladda Koonfur Afrika Sheikh Shaheed Esso ayaa sidoo kale ka shanqariyay in maalmaha soo socda lagu ballansan yahay kulan ballaaran oo mudanayaasha dowladda iyo baarlamaanka ka yeelan doonaan arrinta la xiriirta Soomaalida iyo eedeynta qaraxyada ee lagu tuhmayo. Ugu dambeyntii, Sheikha ayaa ugu baaqay dhinacyada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo xoogagga ka soo horjeeda in ay heshiis xabad joojin ah wada galaan una turaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhiban Soomaaliya. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.